markii aad maqasho ereyga la yiraahdo kufsi waa erey bedelaysa dareenka qof walba oo bini aadam ah inaad dumar si xoog wax ugu qaadato waa mid dareenkaaga aysan ku siineenin shalaytadii Nicholas Neno kufsiga u geystay gabar 7 sano jir ah naxariistii uu ka dalbaday maxkamadda cafiskii uu weydiistay ehladeeda waa hubaal ima cafin doonto falkii aan ku sameeyay gabadha wuxuuna si toos u qirtay in muddo 3 maalin uu isticmaalay waxyaabaha maanka dooriya si xiriir ah 23 sano jirkan ayaa bishii la soo dhaafay lagu cadeeyay dambigan kadib markii sanadkii 2018 la arkay isagoo qaaban gabar yar kula jiro musqusha haweenka kaliya loogu talagalay oo ay leedahay maqaayad caan ah oo ku taala magaalada Pretoria ee Koonfur Afrika waa mid aan hadda ka qoomeenayo markii aan soo xasuusto su'aasha ugu horeysa aan isweydiinayo waxay tahay halkii iga aaday naxariistii haddii aan dib u eego hadaladii ugu dambeeyay tiraado wuxuu ahaa aabo maxay tahay sidaad igu sameynayso waxaan ahay gabadhaada oo kale adeer maxay tahay naxariis daradaad igu sameynayso miyay gabar kula dhalan cawaaqib xumadan aad ii geysanayso maxay tahay aabo waxaan rabaa inaan la tartamo gabdhaha fici waxaan leeyahay riyooyin rajo iyo hami dheeraad ah miyaa halkan ku baabi'inaysaa aabo adiga maxay tahay xaasnimada aad ii qabto aabo waan ku baryaa biliis sidaan ha ii geli markaa ayaa gacan u qaaday hadalkii ugu dambeeyay tiraado wuxuu ahaa xanuunkii adduunyada miya ibaday waligeega kuma cafin doono halka ay ku ruux baxday qof walba ku sugnaa maxkamadda aad buu u qiirooday isla markaana dareenkiisa u badashay dadkii halka ku sugnaa ayaa maxkamad ka codsaday qaarkood in la toogto ninkan kuwa kale waxay yiraahdeen isaga ayaa ciqaab maraya mid kale ayaa lagu daray maxkamadda ayaa go'aansaday in dib loo dhigay kiiskan kadib markii ay buuqeen dadkii halka ku sugnaa gabdhihii Koonfur Afrika ayaa isku soo baxay fagaaraha iyagoo ka soo horjeeda kufsiga iyo dilka loo geysanayo gabdhaha marka madaxweynaha Koonfur Afrika Fosa ayaa wacd ku maray in la toogan doono ninkii kufsi geysta wuxuuna laamaha amniga ku amray in ay sameeyaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga haweenka kadib 2 sano saxiixiga oo ka dhacay kufsi iyo dil loo geysanayo haweenka ma ogtahay dumarku inay yihiin kuwa ugu naxariista badan ha u qaban hal erey oo xumaan ay ku yiraahdaan waxaad fiirisaa wanaagga ay ku sameeyaan waa kuwa horumarkan ku gaarsiiyay isla markay ku dhaliyeen ayay xanuun marayeen miyaad ugu dareysaa kufsi iyo dil way ku dhashay way ku lalatay waana dhali wadub dhaxaadka nolosha ma habboona in dib loo geyso dadka qaar markay leentooda arkaan aad ayay ugu dhaxaan adigana miyaad dilaysaa isku day inaad farxadooda ka taliso isla markaana aad koolkooliso waa kuwa ugu qalbiga jilacan marnaba ha u geysan waxyaabaha niyadooda jabin kara ka tali farxadooda xaqiiqdii adduunyada waad ku waari doontaa waad ku maasan tahay daawashadaada la wadaag asxaabtaada haddii aad ku cusub tahay channelka maxaa cusub fadlan subscribe garee